maayar ku-xigeenka degmada Oog ee gobolka Saraar Cabdi Iidaan Jaamac ayaa xadhiga ka jaray goob caafimaad oo laga hirgeliyay magaalada Oog. Goobtan caafimaad oo lagu magacaabo Daweeye waxaa hirgeliyay wiil dhalinyaro ah oo wax ku soo bartay jaamacadaha dalka. Maxamed Diiriye Ismaaciil waa mulkiilaha goobtan caafimaad. waxa uu tacab badan u geliyay sidii uu deegaankiisa baahida taalo dabooli lahaa, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay adeegan caafimaad oo uu ku soo kordhiyay magaalada Oog. waxaana munaasabada xadhiga jarka ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose magaalada Oog, taliyaha bilayska ee degmada Oog, cuqaal iyo waxgarad kale. waxay dhammaantood soo dhaweeyeen goobtan caafimaad oo ay bulshadu baahi weyn u qabeen. xadhiga ka jirayna maanta oo taariikhdu tahay 15 bishii 2020 Daweeye Pharmacy. Allah barakay clinic leeyahay Daweeye Pharmacy and Laboratory. waxay ugu kaliftay baahida ugu weyn ee loo qabo in aniga wax bartay aan deegaankayga ku soo noqdo. deegaankayga dadku inta badan baahi u qabaan baahiyihii caafimaadka inta u badan oo qofkii markuu dhiig baxo ama markuu gabadha umulayso loola soo carro burco. waxaan furay agab isku dhammaystiran oo leh shaybaar casri ah. hadday noqoto dhiig shubistii halkii qofkii burco loola carari lahaa, hadday noqoto farmasigii, hadday noqoto qaybtii emergency-ga. wax badan oo burco aan qofka aan in badan loo baahanayn oo qaliinkii looga baahnayo, laakiinse gargaarkii degdeg ah u dhammaystiran yahay. baahida caafimaad oo deegaanka ka jirta ayaan gartay anigoo wax u soo bartay inaan deegaankayga iyo dadkayga wax ku soo celiyo. intaas oo dhan igu tabcay. waxaan fariin u dirayaa dhalinyaradii la midka ah ee jaamacadaha ku jirta, hadday noqoto kuwa hadda qalin jabinaya iyo hadday noqoto qaar iga horeeyba, inay ku soo noqdaan deegaankii oo dadkoodii iyo dadkay wax u barteen ay dib ugu soo celiyaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay soo dhaweeyeen deegaanka odayaasha iyo culimada iyo dhalinyaraduba ay si wacan soo dhaweeyeen. aanay ku riyaaqeen in loo soo kordhiyay agabka isku dhan wax la wax ka dhimaanay jirin. hadday noqoto in xaggii farmasiga oo si heer caalamiya dawooyinka Yurub yihiin oo dawooyin Yurub oo tayo la'aan u keenay. hadday noqoto xaggii caruurtii iyo adeegii qaybtii emergency-ga, hadday noqoto qaybtii shaybaarka qolkaasa, hadday noqoto qaybtii dhakhaatiirtii ay fadhiisanayeen oo qolkan kala, hadday noqoto qaybtii delivery-ga oo dumarku inta ku sii dhali karaan markay iska normalka yihiin. dawooyinka ay wax walba yeelaneen dhinac walba dawooyinka way yeelaan. insha Allah waxaan rajaynayaa inuu anfici doono deegaanka oo dhan, oo anfici doono. iyo inkastoo deegaanku aad u ballaaran yahay oo intan oo kale aanay anfici karayn, haddana insha Allah waxaan rajaynayaa inay ka gaari doonto oo deegaankii qof ku soo kordhiya aan noqon doono. qaybtan waxa weeye qaybtii shaybaarka oo dhammaystiran. CBC-ga iyo chemistry-gina waxay yeelaan xagga hoose. intii qaybtii kale reagentiyadii iyo wixii shaybaarku ku shaqayn jirayna waa halkan ku dhammaystiran tahay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa uguna riyaaqsannahay waxqabad weyn oo degmadu u baahnayd, iyadoo jiid dheer dadka laga soo qaadi jiray oo ilaa inta xudun ka sokaysa ilaa inta ka sokaysa ceelaf weyn dadkeeda burco loola soo carari jiray. waxaan ugu mahadnaqaynaa Maxamed Diiriye Ismaaciil farmasiga uu maanta halkaa ka furay oo degmada iyo inta ku xeeraniba u baahnaayeen. ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu kii dadka iyo dalkaba anfaca noqdo. Maxamed Diiriye oo inoo furay Daweeye Pharmacy waa igala ballaaray arrinta farmasi ka ballaaran bar haduu yiri inta soo qaybood oo isku jira ayuu sheegay. waxay qaybtii dumarka qaybtii dhakhtar fadhiisan doono waa uu leeyahay. marka farmasi ka sadroon waxa weeye waa dhakhtar baa loola karaa. marka ilaahay ha u barakeeyo dadaalkan iyo shaqadigan uu galiyay dadkiisii dacweeyay iyo mulkii meesha wax ka bartay deegaankiisa inuu ku soo celiyo. aad baan loogu mahadinaynaa. ilaahayna ha u baarago. dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in lala soo xidho lala shaqeeyo oo la gacan siiyo lana ogaado dhakhtarka muhiimka in magaaladii uu ku soo biiray oo laga furay. anigoo xogayay degmada waxaan soo dhaweynaynaa farmasigan Daweeye Maxamed Diiriye Ismaaciil wuxuu soo kordhiyay waxqabad dhinaca caafimaadka.
waxaanu leenahay dadweynuhuna ha la shaqeeyo dhallinyarada kale ee deegaankuna ha kaga dayato waxqabadkaa uu soo kordhiyey sidaa la soo sheegay waxa weeyaan waxaanu leenahay halkan maxamed waa runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ka maamul ahaan dhakhtarkan uu noo furay ma aha farmasi waxa weeyaan waa dhakhtar dhammaystiran runtii aad iyo aad baan ugu baahnayn maanan lahayn yacni dhishwista maanan lahayn runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida dhakhtarka uu noo soo kordhiyey waxaanu leenahay ilaahay subxana watacaala kuu barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu leenahay ilaahay subxana watacaala kuu barakeeyo annaguna og ahaan waanu u baahnayn bulshada reer ogna waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan oo dhakhtarka loo soo kordhiyey inay ka faa'iidaystaan dhalinyarada kale iyo dadka kale bulshada kale waxaan ugu baaqaynaa ee la midka ah inay soo kordhiyaan fikradaha iyo waxbarashada ay waxay barteen inay magaalada kula soo noqdaan si ay deegaankeenu noqdo mid taabagala